xasidku ma fiicna ay aqoonsadaan walaalahooda Somaliland ay ka qaldina Somaliland Allahu akbar Allahu akbar waa shucuur aad u cajaayib Soomaali dhalasho kumay kala tagin siyaasad bay Soomaali ku kala tagay diin laguma kala tagin dad walaalaay ah baa leeyahay shacabkii reer Muqdisho kuwa Hargeysa iyo Burco iyo Barbare iyo Boorama maba jooga reer Somaliland UK ma la kala maqnaa meel walba gobolada waa la isaga yimi waxa wadannimadaeedan muujinaynaa iyo qadiyadeeda Somalilandnimada inaanay ahayn mid aan ka noqosho lahayn Somaliland mid laga gorgortamayo maanta maaha qolada kale Soomaalida ah ee shiraysan Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inay xal helaan laakiin xalkoodu wuxuu ku jiraa in iyadoo xasidku ma fiicna ay aqoonsadaan walaalahooda Somaliland mid maanta dhalatay maaha Somaliland dawlad la aqoonsan yahay 1960 xalka Soomaalidu wuxuu ku jiraa markay Somaliland wanaageeda qiraan ay ictiraafaan annaguna gogashaanu Hargeysa ugu fidinaynaa walaalaha iyaga Soomaaliyeed waanu soo dhaweynaynaa nabadooda iyo jiritaankoodana waanu jecelahay carabtuba waa dad wada carab hadana waa intaas soo dawladood bay yihiin inagoo intaas soo dawladeed dad Soomaaliyeed banaan UN ta ku soo fadhiisana calaamadeena dad garab iyo gaashaan soo abaynu noqonaynaa Soomaali dhalasho kumay kala tagin siyaasad bay Soomaali ku kala tagay diin laguma kala tagin dad walaalaay ah baa leeyahay shacabkii reer Muqdisho kuwa Hargeysa iyo Burco iyo Barbare iyo Boorama maba jooga marka ayaan la isxaasidin Somaliland waxay tahay qira Somaliland ictiraafkeeda idinka sugayna hadaa tii reer Soomaaliya waa inaad Somaliland qirtaan idinkana Ilaahay waxaan idinka rajaynayaa Ilaahay inuu nabad idinku sugo Somaliland waxaan leeyahay jirto إن شاء الله خير اعتراف أنو رجينا يا سنة كسنتكي. ما هذا رجينا شركة إنه كسب بحدون ما هذا رجينا رجال أدوات سيد. إن شاء الله شركة وحن كرجينا يا إن سومالي لان اعتراف كده كصبحه إن شاء الله سومالي إذا كلنا حل إن لوجه هلا يجنا إلى هاي نبضة إياه وناقي دول النمذ يعلن كأنت أنه هاي سنة إلى هاي يجنا سيا أنه حسد مني إنه سومالي حاسدي منه. نيكن كلا وضع جايان نستجنا هالكن كورة سنة قد يديسا نين عم سوى شيء سو بورك ستا عجائب كا halkaan aad ka akhrisan kartaan marka waxa weeyaan saasay sheekadu kala socotaa saasaa la isu barbar oolayaa waxa isu imanaya ma jiro marka waxaad ku bilowdaa bal magacaaga iyo qadiyadaada maanta magacaygu waa Salmaan Saciid Kawadhe waxaan salaamayaa marka hore dhammaan shacabka Somaliland halkan isugu yimi danahoodii iyo maxalli hawlahoodii iyo shaqadoodii iyo iskuuloodii uga yimi waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaa muujisan wadannimo waxaa muujisan dal jacayl waxaa muujisan wanaag oo dhan anigu waxaan ka yimi magaalada Coventry City oo West Midland ku taala waxa kale aan waxa weeyaan inaan tuso adduunyada iyo shacabka Soomaaliyeed iyo international community-gaba Somaliland inay tahay dal madax bannaan oo ku yaala geeska Afrika oo aan cidna la weydiinayn haddii la raadinayo xalka koonfurta Soomaaliya waxa weeyaan in la helo laba dal oo isbarbar yaala oo la kala yiraahdo Somaliland iyo Soomaaliya the solution is two countries Somalia and Somaliland there's no way to force to be a part of Somalia hadraawina wuxuu yiri ninka dida sinaantiina adna buri sarayntiisa masagaashan baatiisu sadka waa wadaagtaane haddii koonfur diida Soomaaliya inay dal noqoto annaguna yeeli mayno ee aanu ka qayb noqono Soomaaliya